waxaan halkan si rasmi ah u furnay xafiiska NIRA oo ka howlgelaya safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay dalka Masar ee Qaahira. Horey waxaa u shaqeynayay xafiiskii baasaboorada iyo socdaalka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha baa xafiiskeeda u furnaa. isla hay-addii baa maanta iyaguna xafiis kaleeto halkan aanu si rasmi uga furnay NIRA oo hadda wixii ka dambeeya lagu qaadan doono kaararka aqoonsiga. sidaa awgeed jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool dalka Masar aynu walaalaha nahay waxaanu ugu bishaareynaa in laga bilaabo maantay wixii ka dambeeya ay si toos ah halkan uga qaadan karaan kaarka aqoonsiga qaranka. taasoo ah yani waxa weeye aqoonsiga qofku uu bangiyada iyo socdaalka iyo safarada iyo qaadashada baasaboorka iyo intaba ay u tahay bilow. waa mahadsantiin. waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar ay si rasmi ah u qaataan aqoonsiga qaranka, taasoo ah mid ay xaq u lahaayeen laakiin duruufo jira awgeed ay la soo habsaamayeen. intaa kadib waxaan rabnaa in 25 bisha 12aad si rasmi ah dadku ay loo siiyo aqoonsiga qaranka. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad ilaalisaan habraaca iyo nidaamka u yaalo aqoonsiga qaranka, wadiiqooyinka ama wadooyinka lagu qaadanayo. qofka markuu dukumiinti leeyahay hab uu marayaa jirto, qofka markuu dukumiinti uusan lahaynna hab uu marayaa jirto. tusaale ahaan qofka baasaboor hadduu leeyahay dee aqoonsi rasmi uu leeyahay oo la garanayo meel loo tixraaca leh oo la hubin karo dhalashadiisa inuu soo qaato, baasaboorkiisa inuu soo qaato, kadibna uu aqoonsiga qaranka u dalbado ayay kaga xiran tahay. qofka aan wax dukumiinti haysanin ama kaar UN leh asagana inuu maro nidaamka kale loogu talagalay inuu dhalashada soo samaysto, inuu interviewga qaato, kadibna inuu maro habraaci kaleento loogu talagalay dukumiintiga.